sida ay doonayaan warbaahintu meeshan laba deegaan baa jiri jiray oo midna uu yahay deegaanka rasmiga ah ee Soomaalidu degto oo xuduntu halkan bay u ahayd reerka la yiraahdo Muuse Ismaaciil Qaasan Cabdulla Xaamud dabadeedna colaadii ina Cabdulla Xasan iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga ay isku galeen baa laga qaxay meesha tan galbeed baa loo qaxay 2 sano ilaa 3 inta u dhaxaysa lagu maqnaa dabadeed meeshan oo cidla ah lagu shiray meesha la yiraahdo birdaha lagu yiraahdo abar jecel degto ee laamiga mara wadaamagoy baa lagu shiray oo markaa reer cawl ku degan yahay oo caaqilkii reer cawlku markaa halkaa wax ku xukumo halkaas wax lagu tashaday dadkii in lagu soo celiyo ka qaxay oo u qaybsan ilaa Berbera ilaa Bullaxaar ilaa Hawd ku kala quban ba halkaa lagu tashaday in la soo celiyo in culu joogiyo Cali Aamus bay israacay Berbera markaa Ingiriisku jooga Berbera laga soo qoray markaa caaqil Cali Aamus wuxuu ku yiri noqo oo dadka ururi dadkii waa soo urushay waxa la isugu yimi iyada oo geeli hagoogane oo lagu qaybsaday og iyo la wato ayaa la isugu yimi halkan dabadeedna halkan oo iska reer guuraa waxa marka xageyta iyo deyrta la degi jiray meesha la yiraahdo sixid baa markaa loodii loo raray geeli halkaas la isugu tagay Muuse Ismaaciil ku soo noqday bari markii la tiriyay 400 oo nin buu noqday Cali Aamus baa caaqil u ahaa halkaas markaa iyadoo la digay yahay Ingiriiskii markaa soo noqday ceelkaas markaa la isugu yimi station kana waa la jeexay sida lagu digay sidaas ay ahayd dabadeedna 400 maalinta Muuse Ismaaciil ahaa ayaa markaa wixii dambena Cali Aamus iyo culu joog baa isu soo tabinayay sidaas wixii la helay wax Arab laga keeno wax Suudaan laga keeno wax Itoobiya laga keeno wax Soomaaliya laga helo halkaas lagu soo urushayo Maxamed Cali Low baa ka gabiyay wuxuu yiri soo barasankii laguma noqon barakadii sheekha bas galaxa idii daaqi jiray soo wax badan maaha Maxamed Cali Low markaa halka ka gabiyay gabaygaas uu mariyay sidaas dadku ku soo noqday wixii ka dambeeyay oo uqaal ahaa Cali Aamus baa markaa qoray Ingiriisku sidaas uu yimi 25kii baa markaa station ka la dhisay sidaas magaalada lagu degay sidaasay soo ahayd taariikhdeeduna waa taa dabadeedna Muuse Ismaaciil oo dhan baa ku tarmay labada reerayowgan kale abar jecelna waxay soo joogtay meesha la yiraahdo Hartiyimi dhulbaantana wuxuu soo joogay warsangelina wuxuu soo joogay bari meesha la yiraahdo Xubeera dhulbaante garabku nagu hay reer aanu garabka isku haynay dhulbaanta jiray oo markaa garab isku haynta iyadu dawa gudahaanu isla nimi isaga reer labada reer baa markaa meesha aad ugu taraqeeyay dabadeedna si badan baa la isugu qaban jiray arigaabo degsimadeedu waa sida caaqilkii ugu horeeyay Muuse Ismaaciil ninkaas oo ahaa ina culu joog baa ka weyn xaaladaas sidaas ay soo ahayd magaaladana sidaas lagu degay dabadeedna Ingiriiskii markuu yimid waxay noqotay degmada ugu weyn ee bari dabadeedna reerihii oo dhan baa soo maskaabsaday sidaas markaa ay ku noqotay degmo dabadeedna gobol isugu bedeshay taariikh dhaweyd warkeeda sugani waa sida caaqil Maxamuud Dirar Xasan taas waa degsiimadii ugu horeysay la bilaabay ee lagu degay magaalo waliba waxbay caan ku tahay Erigaabo mar ciyaar dhaqameed bay caan ku tahay oo lagu xasuustaa maxaad kale isleedahay Erigaabo caan bay ku tahay waxay ku ahayd xeer dhaqanka la yiraahdo dhaqan Soomaali dadku u yaqaano galbeed habriyoonis bariinay hogaamin jirtay halkan baa laga hogaamin jiray saddexdii nin fadhiyay Burco ninka ay markii dambe u soo doonan jirtay hogaanka
ninka iyo cuquul kale oo wehelisabay ahayd dhaqanka halkaa laga hogaamin jiray caan bay ku ahayd waxaa kaloo lagu sheegaa gobolkan Sanaag ee Ceerigaabo caasimadda u tahay gobolkii awowyaasha bal taariikhda hore iyo dadka Soomaalida ah ee deegaankan soo maray bal hadda maxaad ka waxaan ka hayaa waa dhab meeshanu awoowayaasha dalka awoowayaashii dal taariikhdii ka horeysay waxay ahayd meeshii laga soo isirmay sababta loogu soo isirmay ilaahay baa garanay siduu dadka isugu keenay laakiin ninka lagu yiraahdo Sheekh Isxaaq awdal wuxuu ka soo guuray adari halkaas ushiisi hootadiisu Sheekh Isxaaq way qabsatay ninka la yiraahdo Sheekh Daarood meher buu ka yimi wuxuu ka soo degay laasqoray dusheeda waa meeshuu geedka ka fuulay halkaasuu isna ku isirmo ka soo galay guda biirsay oo Samaroona wuxuu ku aasan yahay yufle shishadiisa waxa ku aasan Sheekh Isxaaq waxa ku aasan Sheekh Daarood waxa ku aasan Sheekha Samaroon waxa ku aasan Ciise Ceelay oo Sheekha sukadiisa walaalkiisa waxa ay xusuuso يعني taariikhda meeshan laga soo arab dedaal arabiyagaaba leh waa dhashiis Isxaaq oo dhulka marka la kala lahaayo isagu dedaal arab waxa la arab oo looga dambeyn jiray sidaasay u ahayd meesha dadkanu sababtay soo keenay ilaah yaqaan labada sheekh badda ka yimid meesha ka nina ka yimid adari ka yimid nina ka yimid meher waan garanaya meesha ka yimaadeen raga kale inay ku dhinteen baan garanaya meel ay ka yimaadeen anu garan maayo laakiin de Sheekh Ceelayo Ciise de waa ka Ceelayo ku aasan Sheekh Samaroonna waa ka halka ku aasan Sheekh Isxaaqna waa ka ku aasan Sheekh Daaroodna wax la yiraahdo ilaa meel la yiraahdo ku aasan yahay sidaasay nimanku meel ilaahay ku soo ururiyay dadka oo ataarta dadka kale ee yar yar ee markaaba joogay de waxa kamid ah Magaadli Jibraahil Miisanle saddexda arin baa lagu yiri ninka badbaadiyay Sheekh Isxaaq waa Jibraahil Jibriil Hiil baa la yiraahdaa ninka waa ninkii badbaadiyay boqorkii markaa meesha haystay intay manaan isku arkeen la yiri nin inaga kicinaya yimanayo hal la dilo waa ninka markay Sheekh Isxaaq ka yimaadeen Ceelay ku kulmeen isagoo geel la joogo way soo ayaaseen markaasuu yiri uu arkay minaamkan halku ku hayay mise nimankii la sheegay nimanku way markaasuu la wareystay wuxuu nimankaas ninkaas meesha haysta waa leedin dilaya waxa taariikh baa lagu hayaa minaama nin idinka kicinaya meesha waa imaanaya nimankii baa aweegtihiin maxaa yeelaysa maxaad nagula talin lahayd bay yiraahdeen waxay yiraahdeen sheekhu gabadh weyn buu leeyahay boqorka Magaadli boqorkaan idin kula talinayna inay idin tidhaahdaan marka ilaa rugay mooye meel kale lama degan magaalo ma rugaygu marka magaalo markaas rugay marka timaadaan oo la yiraahdo maxaa doonaysaan waxaanu doonaynaa boqorka gabadhiisa dha sida qura ku badbaadaan Jibriil sidaas uu yiri waa ninka qura Sheekh Isxaaq badbaadiyay markii kelmadda boqorkii uu soo diray ergo oo yiri bal nimanka u taga baa la yiri war maxaa doonaysaan waxaanu doonaynaa boqorka gabadhiisa markaas uu yiri fadhiisiya nimanka meel baa la fadhiisiyay geelii boqorka loo tagay qaalin shan jira laga soo kaxay waa la keenay Suuriyadii baa markaa loogu sameynaya hashiiba wax islaami fadhiisan karo waay sheekhi baa soo kacay wuxuu yiri harsha hadaan idin fadhiisiyo waxa cadayga intuu gaaro may siinaysa ha baa la yiri oo gooni may igu siinaysa ha baa la yiri sararta midku sida ugu dhuftoori amar ilaahay ku fadhiiso rash bay tiri dhuunta ashi lagu dhuftay waa la qalay sarartii baa la dilaaciyay intii meel uusgi oo meel lagu soo qufay baa lagu dhaxriday waa la jirabaya sheekh cadkii meeshii laga waabaalay Jibriil buu yiri warbalina keen hilibkii baa loo keenay markii hilibkii loo keenay ayaa la yiri ashtii laga baaro waa laga waay Jibriil buu yiri ina dhaqaaji meeshii caloosha lagu qufay oo iska lagu riday buu sheekhi dul tagay Jibriil buu yiri war halka baad sarartii oo iski ku dhex jirta buu soo saaray Jibriil buu wuxuu yiri Jibriil oo sararta soo kariyo la kaalo cad dhergooniya ku kari Jibriil baa soo kariyay
markuu soo kariyey oo uu keenay buu shiikhii u dhiibay sidaasuu shiikhii bilaawiisii ugu dhiftay badh baa halkaa ku duuray jibriil hiilow buu yidhi saaftin carre loogu riday doqoni sidbirsiiyo ma moodda cadkaa hamaydhina cunoo qaado jibriil weli rugay buu joogaa waa meeshuu ku dhaqan yahay waa meeshuu ku dhisan yahay waa nimankaa jibraahiil nimankan reer Sheekh Isxaaq abaalkaasay ku leeyihiin haddii reer Sheekh Isxaaq u gudayona abaalkaasaa jibriil leeyahay waana nimanka haddeer ilaa iyo Itoobiya jooga halkana aataartii joogto shiikhoodii ugu dambeeyay halkuu jiifaayo waa uu noo shiikhaha xaaladdu sidaasay soo ahayd halkaasaa dabadeedna laga isirmi waxa kale kaasuna dee waa ninkii halkaa ka soo degay sheekh daaroodna taariikhdaasay nimanku leeyihiin xaaladdu sidaasay soo ahayd dee intaan ka garanaya waa intaa aan odayaal ka soo gaadhay dee ilaa anigu si kale u garan maayo jiif caaqil Ceerigaabo maanta waa 102 sano 102 sano ma waa 100 sano marka 22kii la degay iminkana aynu ku jirnaa 22kii waa 100 sano buuraa 100 sanadood noloshu dee jiilba ka dhaxlayo waxba isbedelayay maanta waa taas waa caasimad gobol waa maxaad isleedahay way ka dhiman yihiin waliyo may gaadhin Ceerigaabo marka la eego horumarka dunida samaysay maxaad isleedahay waa lagu faani karaa maanta way gaadhin marka la eego in digii horeeyay uga cariishka ka taagay marka labada la isbarbar dhigo maxaad isleedahay way gaadhay maxaad isleedahay waliba may gaadhin ka gaabis bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka hore waa mahadsantihiin taariikhdana odayga dhameeyay meeshan waa Ceerigaabo magacu wuxuu ku yimi halkan waa ceeri baa la oran jiray ceelkana gaaba la oran jiray sidan taariikhda ku hayo labadaas la isla doontay oo Ceerigaabo la isku yiri Ceerigaabo sidan taariikhda ku hayo dagaalkiina Cabdulla Xasan baa laga qaxay wadanka dadku berberu dawada sii dhigtay maatadii wax soo celiyay u baahatay rag oo awowgay ku jiro ayaa de Ingiriiskii ka codsaday inuu dadkii ku celiyo meeshii ay ku celiyaano de Ingiriiskuna la gacan qabto Ingiriiskii wuu ka aqbalay sahan buu soo diray halka la yimi awowgay waa maraya afar caaqil oo awowgay ku jiro ayaa la yiri kala doorta ceelka ceelafoyn la yiraahdo iyo ceelka jiidali la yiraahdo iyo ceelkan gaabo oo afweynaha deer la baxay awowgay waa Cali Maxamed Faarax Cali Aamus wajiif caaqil ahaa saddexda ceel kala doorta ninba meel buu jeclaysanayay ragga qayr baa jiidali jeclaysanaysay qayb baa ceelafoyn jeclaysanaysay awowgay iyo rag ku heliyaana tan jeclaysanayeen nin walba wax la weydiiyay waxa uu ku dooranayo meesha halkan badii meyd baa ka dhow buurtii daaloodna waa ku xigtaa ceelkii biyaha lahaana waa ceelkan meel badii ka dhowdahay oo dad baa la soo celinayay hoy waxay ka samaystaan inay helaan la qorigii daalo oo dayibkii iyo dhasaqdii baa daalahay si ay guryaha uga dhigtaan iyo biyihii saddexdaas awowgay isla doontay sidaasuna foodkii ku helay sidaasaana Ceerigaabo lagu degay gurigii u horeeyay isagu u ka aasaasay oo halka yahay oo hadda dadka warasada dhaxashay aan ka mid ahay gurigii u horeeyay ee qori laga taago Ceerigaabo cariishka awowhay baa ugu horeeyay waana kanoo hadeer Abu Cariish baa loo yiraahdaa magacaana buu leeyahay Abu Cariish baa la yiraahdaa dhawaan baa laga bedelay cariishkii oo dhagax loo bedelay oo ku soo dhowr 9kii 95kii baa qorigii awowhay taagay laga bedelay oo dhagax loo bedelay 1919kii baa diyaaradii Ingiriisku garaaceen wadankan waliba sayidku markaa meel midhishiliyay deganaa 2 sanadood baa laga maqnaa 20kii baa laga maqnaa
22 baa lagu soo noqday oo sahankeedu socday 1922 aakhirkiisa ayaa qoryaha u horeeya laga dhidbay magaalada Ceergaabo halkaasaa dawladdii Ingiriisku dee rumbaan ka dhigatay 1925 saldhigaasay dhistay Ceergaabo dhagaxiisa la dhigay marka Ceergaabo wax la digay 1922 guriga u horeeyay awoowahay Chief Caaqil Cali Maxamed Faarax baa ka taagay sidaas lagu digay sidaasana foodkii lagaga helay labadii meelood ee kale ee Ceelafweyne iyo Jiidli ahaa dadkuna in marka qoys buu ahaa reer dadka degmadaniba qoys bay ahaayeen isdhalay oo wada degan oo wada dhaqan qoys dad 400 iyo baa soo noqday iyo 400 ninkii u horeeyay ku dhashay oo 400 iyo kow noqday dee anaaba soo gaadho bardhood budunto waa boqol baa la oran jiray in Cismaan Xasan waa soo gaadhay sidaas Ceergaabo lagu digay ceelkii Afweynena waa kan Afweyne markii dambe la baxay gurigii u horeeyay laga dhisay waa halka oo Abu Cariish baa la yiraahdaa hadda oo arki kartaan sidaas awowgay ku digay iyo raggii u helinayay ilaa ragu waa ninku toos ninku tiirsane raggii dee la shaqeynayeen oo dee aaminsanaa inay wax wada leeyihiin sidaasay ku soo amaamudeen sidaas nabadgelyada lagaga shaqeeyay sidaas lagu digay sidaas lagu magaaleeyay sidaasay ku magaalowday aniga magacaygu waa Caaqil Rashiid Maxamuud Cali Ismaaciil waxaan hortaagnahay gurigii ugu horeeyay Ceergaabo udubkii ugu horeeyay ee laga taago oo ah guri Cariish Cali Aamus Cali Maxamed hadeerna waxa agteeda taagan wiilku awowga u ahaa Caynaansho Caynab waxa weeye marka waxa weeye gurigaasaan hortaagnahay waa gurigii ugu horeeyay waa gurigii magaaladu ka asaasantay waa gurigii ugu baraka badnaa marka waxaan leeyahay insha Allah cala alkariim daariha dambe oo dhamina halkaas ay ka istaadmeen ilaa af daaraha oo dhami guriyaha magaalada oo dhan halkaas laga asaasay Cariish waxa weeye wuxuu ahaa qoray Cariishku waa qoray dabadeedna qaariyadaha waxa laga dhigi jiray qoray waxa weeye tiirar baa la sameyn jiray tiirarkaas lagu taagi jiray qoraygaas oo ahaa Cariishku sidaas lagu dadi jiray ciid baa marka dambena dusha laga saari jiray markii dambena halkaas Cariishka ugu horeeyay ka dhismay dabadeedna daartiisa gobolkii oo dhamay hadeer gobolka oo dhami waa daar meedhan weeye gobolka oo dhami aad baad wanaagsan tahay